السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما أنت قصة ذي وحي قصة بسنطة هاي قبر ولا عيان كهالليا وإيسو اللي بتي قصة عص وحين يقتري لو ذاك ضدك ولا لها ما شاء الله قبل أسبوعي كهالليسا وحي يزقور سدينين ممكن يزقور سدين إيه الصوماليات وحي ودشا صدع عرورة وحي جوتا دلك النوروي قبر مركي يريد أي سوق الشي وحبرتي وأقون في عن لحيت وسكول لما يسوي وحبرتي شقة في عناية شيء شقة أنا بكس بود جرين جت من كذا يكون عاون جتي بس مركز سيد سيد كذا عاون يسوي بود جرين يسوي وعترني كأدي أنا وشعلات لكن الصقع مو شعلان بكس وحكوا قاعد تري هذا الله ويستعمله مركو وحير ما تسقبنه عدي شريت وكاتب أنا كلام قرصنا naag adiga kaa qurux badan aan guursanaya naag adiga kaa fiican aan guursanaya waa kugu khaldamay inaan ilmo kaa dhalo qalad bay ahayd erayadaas uu isticmaalay tiri marka anigana aad u jeclaa waan tiri markasta hadalladaas uu dhibi jireen oo walaalka use gareeyay tiri isticmaal hadalladaas isticmaal jiray uu dhibi jireen kadib waxay tiri ninka aad u jeclaa isagana inuu jeclaan ima keer gareyn jiray tiri aniga laakiin si aad u keelgareyn jiray marka kadib waxaan galay tiri inaan fakaro markaan yara fakaray dhaqaatiirtii aan yara fakaroon buuq yar dareemay kadib dhakhtar baan u tagay arrintii haystaan u sheegay xataa mararka qaarkood waxaan ku siin jiray tiri inaan isdilo fakar awgeys ninkan waa jeceshaa kuma jeclo maxaa dhacay maxaa ku jeclaan waayo wax walba u samaysaa maxaa dhacay mararka qaarkood nafteeda waxay tiri intaa muraayada tagan isweydiin jiray waxaan dhihi jiray tiri maxaa kaa qaldan muxuu ku leeyahay ma qurux badni muxuu ku leeyahay naa kaa fiicana raadsanaa xageed la adahay intee la adahay maxaa kuu dhacay muxuu kugu arkay waan isweydiin jiray tiri marka kadib waxay tiri anigiiba waxay ugu dhacday tiri kalsooni darro kadibna waxaa ila soo darsay tiri xanuun isla hadal la yiraahdo waan yara fakaro isla hadlay tiri kadib waxaan u tagay dhakhtar arintayda u sheegay waxay rahan dhahay tiri dhakhtar waan fakaraa dhibaatadaas ay haysato maxaan sameeyaa dhakhtarkii wuxuu ugu yiri daawo mararka qaarkood waxaan ku sigtaa tiri inaan anigu istilaba xataa dawo wuxuu ii soo qoray dawada depressionka dawadii ayaan qaadanayay tiri anigoo isku buuqsana dawadii qaataba dawadii xoogaa ku degay maskaxdeeda yara degtay ayuu maalintii dambe wuxuu ugu yiri waxaan aadayaa Soomaaliya oo ku soo laabanayaa Soomaaliya aaday muddo maqnaa maxaa kugu dhacay soo laabanaysa miyaa maxaa kugu dhacay maanu imaatid markaan wuxuu ugu dhahay tiri waa ka raystanaa qurux badan oo ka qiimo badan oo ka fiican aan helay marka iga raalaha naag shaqaaladayda meesha maras dareemesh ku dhaqaysaa marka wuxuu ku dhahay naa adiga ka qurux badan oo ka fiican aan helay buuqaaga ciyaalkaaga adiga waa inaga raystay inay ma imaanayo nabaday meeshii ku nastanaa leyd afrikaan qaadanaya marka walaalay wuxuu tiri aad u dhaamishkiray anoo jecel isku buuqay wax waalana noqday shilin ma haysan jirin wax alla waxa soo shaqay isaga siin jiray waxay tiri mararka qaarkood xataa waxay jirtay tiri habeenka casho u sameey mararka qaarkood tiri inta casho sameey oo guriga hagaajiyo ilmaha maasha Allah kala siiyo maasha Allah maasha ubax yar ama barfuun gift yar soo gadi jiray waxaan dhigi jiray raali galay aniga mararka qaarkood waxay tiri waxaan aadi jiray saaluun tima soo hagaajisay shooq ugu furatay maanta dhameeg ama soo marsanaa waa isqurxinaa bal mar leeyahay ku yiraahdo qurux badan tahay weligiis xataa ninkaas ay tiri make up kasta daan soo marsan dirac kasta daan soo xirta casho kasta daan u keeno weligii muu dhihin tiri waa qurux badan tahay maasha Allah xaaskeena qurux badan waaye naa fiican waaye midna ma uu dhihin weligii xataa niyada ima dhisanay tiri walaalay macaani waxay tiri wax kasta waa sameyn jiray tiri habeenayna casho sameynaya group flower ubaxyo ku daadinaya waxa ku dhaamiiska dhan wada rayd ka dhiga qurux ka dhiga flower ku daadinaya love romantic aan jiray tiri ubaxa soo diyaarina cashaan keena ciyaalka siixina aniga soo make up gareena aniga druud qatar soo xirana aniga timi soo xataa sometimes qurux badan tahay ilaa xataa tiri timaanta soo hagaajiso oo maarka color soo mariyo soo fooneeyo waxa tiri soo friisin jiray mar la marka casheynaysa ku dhahay tiri qurux badan tahay
neeba wacdir aniga xataa shoog ay furmeetay kalsooni darra ugu dhacday waxaas waxa uu sameeyay ha ku yiraahdo la balo qurux badan tahay afkiisa ka soo baxdo marna ma dhahay xataa si kasta ugu labistay babu inaan labistay in kala xataa ma dareemayo ugu dhaado marka walaalayaal ragga Soomaalida qaarkood gabdhaha waalna waana iga talo hooyo miskiin oo ciyaar ku dhashay inaad amaantid ayaa sharaftu tahay ma inaa caysid maahan inaad tiraahdo ma fi oo qurux badan shala marka hooyadeed ka soo gursanaysa iyo reerkoodaba waa qurux badan tahay macaanta ku dhisa maanta marka ilmo ku dhashay inaad tirahdeen ma aragtay inood ku qabatid waa laga fiicay marka rag Soomaaliyeed waxaas iska daayaan gabdhaha most of them أنا أمريكا كلمة روح عارفة قبل بدنا أود برشة كل عاد مركو بهنيكم مقرب بنيت أما كم تشعلي أنا أكلم كل سنة قاعدة هس مركا ولا ريالو فرق الصومالي ده مش شيء قبلها ده مش كرينتها اللي كده قبلها ويوم واي الماء يكون الشوا حاس كاغ وقف مسكين وضمر هذه إلهي بقوله قاعدة ما أهم سيدا أدون تب إنك مسكريسي مركو ولا ريالو تاسوا إذا طلع فرق الصومالي ده مش شيء gabdho badan waxay jira qurbaha damage gareysaan gabdho badan oo dhibaataysan gabdho badan oo waasho hooyooyinka ilmaha laga qaato moosta waxay u badan yihiin arrin noocaas oo ku dhacda marka walaalayaal arrinta noocaas hal joojiyo waa iga talo waayo ilmaha hooyadooda daabaadir gareysid waxa ku dhacay depression waxa ku dhacay inay isdisho waxa ku dhacay ilmihi inay handle gareeyso waxa ku dhacay dhibaatooyin badan ayaa la soo darsay marka hooyadan la damage gareynaa ragga Soomaaliyeed ha joojiyaan hadaa naa gursatay waa gursatay hadaadan gursan gabadhaada oo qurux badan tahay hadaan cad tartiib iska fur arlaahi waasع laakiin gabadh in maskixiin loo dilo oo la waalo laga soo qaado waxa aan waxba ahayn bila aad human being aan ahayn rag oo dhan ma aha laakiin inta badan nimanka qurbaha u badan sheekadaas oo ku dhax depression ku dhigo waxaan la hadlaa nimanka qurbaha walaalayaal inta badan u badan kulli ma aha wiilasha Soomaaliyeed oo ma cayna aniga walaala ila dhashay oo wiilal aan dhalay marka ma cayna oo nin Soomaaliyeed ah laakiin waxaan ii sheegaa inta badan way u badan arrintaas hal joojiyo walaalayaal ku waantooba ninkii sameynaya ku waantoobo gabdho waa iska masaakiin ani for example ahaan haduu dhaho ninkeyga for example ahaan ma qurux badni umadnimo badatay ma badni haduu danimo malid qurux malid haduu dhila aniga iskama dhaadhicin lahayn qofka aan ahay baan ahay no one aniga bedeli kara ma jirto oo janji ugu sameyn karo haddaan danimo la waa leeyahay haddaan doqonteedaan haddaan falxumada ilaahay sidoo ii abuurana inkastoo bila aadanka qurux iyo falxumada ay kala helo qofku wuxuu ilaahay u abuuray inuu ku qancay ay tahay laakiin waxa waa midab inta ugu badan ee Soomaalida dhibaatada ka haysto waa taas marka walaalayaal number 1 gabdhaha kalsoonida naftooda haysa qof bila aadan hadal ku dhahay waxba ka soo qaadan intaas aan aaminsanahay haddii laakiin bila aadanku isku maartay isku qalbi maahan isku aqlina maahan isku maskaxna maahan marka gabadhan jacayl badan ay sheegato uu ku dhibaateeyo uu ku rafaadiyo marka walaalayaal ragga Soomaaliyeed waxa ay iska daayaan salaam calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh anigana hal hadalaan oranaya walaalayaal dadka Soomaalida ah ee daawado markasta waa inaga codsadaan please subscribe iyo like waa codsi commentigana fikirkiina igula wadaaga insha Allah khayr badan ay inaga tagay salaam calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh